Farshaxanimada luqadda waxay ku soo baxdaa xulashada ula kac ah iyo habaynta erayada oo la mid ah garaacista taxadarka leh ee burushka rinjiile. Habkani keliya maaha doorashada erayada ku habboon, waxay ku saabsan tahay in si qoto dheer loogu quuso badda weyn ee erayada iyo dulsaarida luul si fiican u koobaya macnaha, shucuurta, iyo nuxurka loogu talagalay. Marka aynu ka hadlayno diiradda saaraya mawduuca, waxay la mid tahay fiirsashada daran ee farshaxan-yaqaanku u eegayo xannibaadda marmar ee hortiisa ah. Sida farshaxan-yaqaanku u qiyaaso shaxanka dhexdiisa, isaga oo sugaya in lagu muujiyo si taxadar leh, erey-yaqaanku waxa uu odorosaa fariinta gudaha mawjadda fikradaha. Diiradu maaha dusha oo keliya ee waa lakabyada hoose, sahaminta qoto dheer iyo cabbirrada si loo hubiyo in kelmad kasta, weedh kasta ay la jaanqaado nuxurka mawduuca. Dhaqankan miyir-qabka ah ee xulashada erayada iyo diiradda saaraya mawduuca ayaa wax ka beddela qoraalka ficil isgaarsiineed oo keliya una beddela qaab farshaxan. Waxay u baahan tahay ma aha oo keliya fahamka luqadda, laakiin sidoo kale waxay u baahan tahay dareenka dhegaystayaasha iyo xidhiidh qoto dheer oo lala yeesho mawduuca. Habkan qoraagu kuma koobna oo keliya inuu gudbiyo macluumaadka, laakiin sidoo kale wuxuu kiciyaa shucuurta, kicinta fikradaha, iyo inuu sawiro muuqda ku dhex sawiro maskaxda akhristayaasha, taas oo kor u qaadaysa ereyga qoran qaab farshaxanimo. Dulucda mawduucani waxa uu xambaarsanyay habsami u dhaqan. Gaar ahaan, hadalku waa horyaalka adaamaha. Waa anigoo Ubax Ina Suldaana iyo soo saare Maxamed Shooki, waxaan idinkaga tegaynaa fi amaanilaha iyo kulan dambo xiiso leh.